السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موجية جنال صاحب هدي أدنو عصب تاي سبسكريب نوصار مقال كان عدوكو عجبية فضلا لايك صار مهد سنت. كسو دوادا موضوعنا عمر المختار لباحي سعرها هليايقي ليبيان كوفانان نين وحكبت لي تاريخ عربيد قميستانا أدري فرين إن ليبيا تاي ميل لغو فانتو لفاها قميستاها تليانيغا مركي تليانيغو سوغا لي تريبولي كون ساقال بغل كوي طبانكي إساقو رجينيا إن ليبيان كو أيو أركي دونان إن أيهين كو أهلي حريات سيدي حكمكي عثمانيين تا منافلين إن إسكعابين لغالهور إيمانا يو إسكعابين تاس أو سعوتي مدلباتن صناه كان سعوتي أغاقارها بنقاسي إسكعابين تاس waxaa hogaaminayay Umar al-Mukhtar libaaxii saxaraha kaligii taliyay fashista talyaaniga hogaaminayay Benito Mussolini wuxuu bilaabay in uu caburiyo kacdoonkii gumaysidiidka ahaa wuxuuna bilaabay in uu ciqaab wadareed u geysto 100,000 oo reer Liibiya ah kana maswaafuriyo deegaanadoodii ay kacdoonka ka socdeen isla markaana uu ku guray xabsi wadareedyo ay kumanaan qof ku dhinteen aabihiisna wuxuu geeriyooday isagoo da'yar wuxuuna ku soo koray agoonnimo yaraantiisii wuxuu barashada quraanka u aaday tuulo aan ka fogeyn siwaayad halkaas ayuu ku soo bartay quraanka iyo dhammaan culumta la xiriirta islaamka caalimkii bari quraanka wuxuu ahaa Sheikh Mahdi al-Sunaysi Sheikh Mahdi al-Sunaysi 1897 wuxuu Sheikh Umar al-Mukhtar oo u xil saaray magaalo la yiraahdo سواية القصور أو كتر سنقبل كجبلال الأقدر إساقا أو هلاي جاقدا سيدي أو لوغير أو دياشا إيا علماء دقاق السنيسي عمر المختار وحوسيدو كلمة سنة كن ورا دالك السودان هالكاس أو أي كسوغنايين حوقا دقاق السنيسي إياقا أو متلي مقع المهدي السنيسي المختار وحود دقنا دقمك طالق البيت كسودان تان يا مركيشي مختار وسفر كتاقي دالك السودان وحا لوغو يرجري لباحي لما دقانك سنة كهور دقال الذي عمر المختار لقالي تليانيغا وحو انجليز كدقال كلقالي ديغانكو يا لحدك مصر سيدا ديغان ندا بردية مساعد دقال كي سالمونا وحو دعي كون سقال بغل إيا سيديدي sidoo kale Umar al-Mukhtar wuxuu ka qayb galay dagaaladii ka dhex qarxay dhaqdhaqaaqii Sunaysi iyo Faransiiska ee gobolada koonfurta Suudaan waxaa intaa u dheeraa Umar al-Mukhtar ka qayb galkii dagaalkii gumeystaha Faransiiska ku qabsanayay dalka Jaad ee dhacay 1900 sanadkii 1911 Talyaaniga ayaa wuxuu iclaamiyay dagaal ka dhan ah dawladda Uthmaaniyiinta ee ka talisa dalka Liibiya wuxuuna Talyaanigu ciidamadiisa u ka howlgeliyay gudaha dalka Liibiya sanadkii 1912 Talyaanigu wuxuu ku dhawaaqay Liibiya in ay tahay dal uu Talyaanigu gumeystihii Talyaaniga iyo kooxihii iska caabinta ee gumeysidiidka oo Umar al-Mukhtar hogaaminayay iyo ciidamadii Talyaaniga waxaa Liibiya ku dhex maray dagaalo aad u waaweyn oo kamid ahaa dagaalkii weynaa ee labada maalmood socday ee Dirna dagaalkaas oo dhacay bishii May 1913 dagaalkaas oo ku soo dhamaaday dhimashada 70 askari oo Talyaani ah iyo dhaawaca 400 oo kale sidoo kale 1914 waxaa dhacay dagaalo ay ka mid ahaayeen Shaqnaaba, Shaldiima iyo Sawaytiina xilligaas oo Umar al-Mukhtar hogaaminayay dagaaladaasi oo dhan isagoo iskaga gooshayay goobaha ay dagaaladu ka socdaan xaaladii ayaa ka sii dartay iyadoo faashistiyadii ay la wareegtay taladii Talyaaniga bishii Oktoobar 1922 intaas kadib waxay kordhiyeen howlgalladii military ee Liibiya Talyaanigu wuxuu damcay in uu qabsado wadada sahayda u soo marto kooxaha kacdoonka waday wuxuu qabsaday qayb ka mid ah balse ma hor istaagin kooxaha kacdoonka waday in dagaaladoodii ay sii laba jibaaraan taasoo ugu dambeyn Mussolini ku kaliftay in Badlonia uu soo magacaabo taliyihii militariga Talyaaniga ee dalka Liibiya January 1929 hadalkiisii caanka ahaa Umar al-Mukhtar wuxuu ahaa ma isdhiibeyno ilaa aan guuleysano ama aan dhimanno kadib iska caabin iyo halgan qaatay 20 sano ugu dambeyn Umar al-Mukhtar gacanta ayuu u galay gumeystaha bishii Sebtembar 1931 waxayna ku xukumeen xukun daldalaad ah ugu dambeyn 1943 ayuu gumeystaha Talyaanigu ka baxay Liibiya asxaabay barnaamijkeena halkaas ayuu nugu eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh